waxaa magaalada Buuhoodle ka dhacday munaasabad ballaaran ay ka soo qayb galeen odayaal waxgarad bulshada qaybaheeda kala duwan. Munaasabadan oo lagu taageerayay musharax xildhibaan Faadumo Diiriye oo u taagan qabashada xildhibaannimada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya 2022-2025 ayaa ka dhacday magaalada Buuhoodle. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal waxgarad ururada haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, waxaana halkaa ka hadlay odayaashii iyo waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadan, waxayna si wada jir ah u taageereen musharax Faadumo. munaasabadan aan ku shaacinayno musharax xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliya 2022 Faadumo Diiriye waxay dugsiga sare ka baxday Irish Humber oo ku yaala dalka Canada. Faadumo Diiriye waxay la soo shaqeysay iskoolka boardingka ku yaala dalka Canada oo ay ka shaqeynaysay muddo gaaraysa 6 sano. Faadumo Diiriye waxay kale ka soo shaqeysay dhinaca hay'adaha oo hadda ay gacanta ku hayso hay'adda Lifeline Foundation oo ah hay'ad samafal ah oo dadka NGO-yada ama dadka danyarta caawisa oo ay ka tahay maamulo sare. Faadumo Diiriye oo hadda aan xafladeeda aan joogno aan ku shaacinayno maanta oo ah musharax xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliya 2022 insha Allah waxaanu gudageli doonaa heerkeeda jaamacadeed iyo sidoo kale waxyaabaha ay jaamacadda ay kaga qalin jabisay. Faadumo Diiriye waxa ay ka baxday jaamacadda Queensland ee dalka Canada. Waxa ay ku takhasustay cilmiga maamulka iyo ganacsiga. waxa kale oo ay ka shaqeysay mid ka mid ah shirkadaha information technology ee dalka Canada ee ugu weyn. waxa kale oo ay ka shaqeysay qaybta isgaarsiinta oo ay ka shaqeynaysay muddo gaaraysa 6 sano. ugu dambeyn waxa kale oo ay ka shaqeysay dhinaca farsamada, dhinaca siyaasadda. Faadumo Diiriye waxa ay soo noqotay xubin ka mid ah xisbiga cusub ee loo yaqaano NBD dimuqraadiyadda ee dalka Canada ka jira oo ay ka tahay xubin sare. Faadumo Diiriye insha Allah waxaynu gudageli doonaa ballanqaadyada ay insha Allah fulin doonto haddii ay ku guuleysato xilka xildhibaan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 2022 insha Allah ballanqaadka ayaanu gudageli doonaa. waxa ay insha Allah Faadumo Diiriye ay ballanqaadaysaa haddii ay xilka ku guuleysato xildhibaan anigoo ah Faadumo Diiriye haddii aan ku guuleysto qorshahayga koobaad ee xilka xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya in aan gobolka Cayn uu helo bay tiri adeeg caafimaad oo dhameystiran. labo in aan dhalinyarada u sameeyo shaqo abuur. saddex in aan horumariyo wadooyinka iyo sidoo kale kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka Cayn. afar in aan wax ka bedelo nidaamka waxbarashada ee gobolka Cayn anoo u bedelayo bay tiri nidaam casri ah oo isku xidhaya nidaamka waxbarashada gobolka Cayn iyo nidaamka waxbarashada ka jira dalka Canada anigoo isku xidhaya bay tiri qaab casri ah oo si toos ah live ah. insha Allah waxay tiri waxaan sameynayaa waxbarashada ah samafal ah oo aan u sameynayo dadka waaweyn iyo sidoo kale dadka yar. geesta kale lambar 6 in aan horumariyo barnaamijka wax soo saarka gobolka gaar ahaan dhanka beeraha. 7 in aan dhalinyarada aan kula dadaalo inay qayb ka noqdaan siyaasadda. Faadumo Diiriye xildhibaan ka federaalka u tartamaysa ama doonaysa inay ka qayb gasho waa soo dhaweynay soo dhawo Faadumo Diiriye hambaliyo si fiican ku soo dhaweynaynaa. markii hore waxa badee lagu bilaabi jiray gabadha tan bala waa laga erxiisa jabade mataana hawd weeyaan baa la oran jiray. iyada waxay la tahay laguma darisaanka haday mataana u tahay iyo haday Faadumo Diiriye khaasatan taba waa dhaweynayna waa soo dhaweynayna wax qabadna qofna anagu la ballami mayno laakiin qof walba waa wuxuu keensadaa ama ka muuqda ama uu qabtaa. qof waliba si fiigiso ama hawanada ama ha koobnaado Buuhoodle maanta wuxuu u jeedaa si fiigu ma jeeda wax qabad buu u jeedaa. waa dhaweynayna gabadha waa soo dhaweynaa hambaliyo marka Faadumo Diiriye waa soo dhaweynaynaa. waxaan leenahay xilkaasi waa xil aad iyo aad u culus haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala adiga iyo ummadaba uu khayr u yahay Allah kugu guuleeyo. Faadumo Maxamed Maxamuud Diiriye
waa u hambaliyeynaynaa waana shaacinaynaa waana soo dhawaynaynaa kursi kastoo ay u sharaxan tahay Faadumo Maxamed Diiriye iyaga markii hore meesha ka saaray anigu boodadaan akhriyay Faadumo Maxamed Diiriye waa soo dhaweyn oo waa ugu ducaynaa kursiga ilaahay idankiina waxaanu ka baryaynaa meeshan hablaha waaba ku yaraayeen gabadh kaliya ay soo sharaxday markii hore waxaynu rajaynaynaa rag badan oo intaynu dooranay aynaan dib arag baa jira gabdhuhu inay nagu soo noqdaan insha Allah Faadumo Maxamed Maxamuud Diiriye ay soo shaacisay isu soo shaacisay xildhibaanka waxa weeye waa ku garab taaganay aad iyo aad baan ugu garab taaganahay qof waliba himiluu leeyahay himilada uu leeyahay iyo hankiisa yaan ugu garab taaganahay Faadumo Maxamed Maxamuud Diiriye xafladan loo qabtay ee lagu soo shaacinayay xildhibaanka golaha federaalka aqalka hoose gabadhaas iyo gabdhihii kale iyo intii kale musharaxiintii gobolka waa soo dhaweynaa dhamaantoodba aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa diyaar baan u nahay insha Allah gabdhuhu inay galaan meelaha muhiimka inoo fadhiistaan waa soo dhaweynaynaa shaacinteedana waana loogu yeedhado waa aqbalay ee u sharaxan musharaxadda baarlamaanka federaalka Soomaaliya khaatii khayr ugu jiro Allah u sikhiro horta ma naqaan oo gabadh reer buu hoodla laakiin hankeedu waa fiican yahay waxaanu leenahay hankaaga ha ku qadi waxaanu kala ku leenahay gobolka Cayn ilaa 60kii wax u qabtay ma jiro hadaad ku soo baxdo oo Ilaahay kugu garab galo walaalay dadka wax u qabo musharaxa xildhibaan Faadumo Diiriye oo u sharaxan xildhibaanka Jamhuuriyadda Dawladda Federaalka Soomaalida golaheeda baarlamaanka u sharaxan shaacinteeda weeye Faadumo waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay ku soo dhawow musharaxiinta gabadha Faadumo Maxamed Maxamuud Diiriye waa soo dhaweynaynaa waa taageeraynaa waana u ducaynaynaa waxaanu leenahay hadduu khayr ku yahay ilaahay kugu guuleeyo waxaan kulli halkan isugu nimid waa shaacinta musharax Faadumo Maxamed Maxamuud Diiriye golaha shacabka ee aqalka hoose ee federaalka Faadumo waa soo dhaweynaynaa dhamaantayo waa soo dhaweynaynaa marka xiga Faadumo markaan ka hadlo Faadumo intaan ka aqaano anigu Faadumo Maxamed Maxamuud Diiriye Faadumo Maxamed Maxamuud Diiriye deegaankan wax badan bay ka qabatay sida runtii marka LDB-yada Shangalle iyo Balidocol sanadkii 2018 waqti aanu malaynaya inoo timi xilligaas oo dadku abaara ku jiray iyo biyo la'aan fara badan waxa ay gaarsiisay deegaanada magaalada ama ha ahaato ama ADB-yada ha ahaatee biyo iyo raashin iyadoo ay isxilqaantay oo iskeed u keentay waa qof deegaankan horta Faadumo wax ka qabtay oo haddana aynu ka filaynay marka hore waxaan leeyahay Faadumo waan soo dhaweynayaa marka xiga waxaan leeyahay dadkan kursigan ay u socoto ay doonayso beeshan ku abtirsata wali umaynaan dooran kursigan xildhibaan gabadh ah intaa waxaynu dooranaynaa ninun baynu dooranaynaa hal nin oo inagu soo noqday ilaa 2000 dawladii Cabdiqaasin ilaa hadda ninun baa fadhiyay inta nin inagu soo noqdo oo yiri war waxaan deegaankii buu hoodla u wadaa iyo waxaan keenay maynaan arag waxaan leeyahay war maanta aynu gabdhaha tijaabino oo aynu maanta gabdhaha jaaniskooda siino Faadumo Maxamed Maxamuud Diiriye waa soo dhaweynaynaa waa dalkeedii waa dadkeedii waa diinteedii si sharaf leh u soo dhaweynaynaa waliba haddaanu gabdhaha nahay si gaar ah u soo dhaweynaynaayo te waa gabadhba in badan buu raggu caalamka u taliyay berigii hore ee reer miyiga xoolo dhaqatada la ahaa intuu sarwaan ku jarjaro ayay odhan jirtay aqalka waxaana qaadi karin baa iga dhexyaal markii 4 caruur ay eegto markii maahee
iminka waa idinla baratamaynaa haddaad baylood lahaydeen baylood baanu leenahay haddaad mutacallimad lahayd mutacallimiin baanu leenahay oo haddaad xildhibaan lahaydeen xildhibaan baanu leenahay na soo dhaweeyo annagu waa idin taageeraa si qurux badan noo taageera inaan ragow gabadhaas kursigaasi hadduu yahay khayr allaha ku soo dhaweeyo allaha u barakeeyo hana ku guulaysato waa gabadh qurux badan ee qiimo allaha ugu daro mataanuhu waa soo noqnoqdeene dee mataanuhu way jiraan way kala horeeyeen oo mataanana hadda nabadda lagu xidhay mataanana waa orjinaalkii hore marka mar walba mataanaha way tahay kuwa dambana way tahay oo raacal cadmeed bay galaysaa kuwii horena way tahay oo waa mataanihii hagar iyo wacaysaha marka adaaba laba jibaaraba laba mataanood ku fadhiyaane iyo tolkaagii kale allaha kuu barakeeyo waxaan ku leeyahay haddaad ku guulaysato looma baahnaa kursiga inaad ku fadhiisato qofka kursiga helaa laba u qaybsamaa mid dadka waxtara oo shuruudihii uu galay oofiya iyo mid markuu kursiga ku fadhiisto taleefankana xataa aan qaban xoogaagii ka baxayna dawladdu ka helaya hawlu taalla maaha shuruuduu galay iyo ballankiina ma eego hadda maxkamaddii aakhirana way dambaysaa dadkan markaad u ballan qaadaysaan aad odhanaysaan waxaasaan qabanaya dadku run buu deemoodaya marka inkastoo aanan gabadh wax khasaaraysa arag runtii hablaha Soomaaliyeed waa halbowlihii hablaha Soomaaliyeed heegan bay galaan ubadka way noo hayaan way hadaaqiyaan hantida loo dhiibay durba way hagaajiyaan sida raggana isuba haystaan waa heshiis anagu kursiga kuma haysan Maxamed Cali Bile warbaahinta qaranka Soomaaliya buu hodle